رسالة الدين في هذا الوجود أن يهزم الظلم وتلغى الحدود. رسالة الدين في هذا الوجود أن يهزم الظلم وتلغى الحدود. والطير يغني من غير قيود في كل سماء، هو الحق يسود في كل سماء، هو الحق يسود. رسالة الدين في هذا الحمد لله رب العالمين، أن يهزم الظلم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، waxaan ku jiraa mu'tamarkii koobaad ee waddanka Koonfur Afrika lagu qabanaya gaar ahaan caasimadiisa Johannesburg. waxaa hadda inoo bilaabanaya muxaadaradii 8aad ee mu'tamarkeena maalinkii saddexaad. muxaadaraduna maanta markii laga bilaabo waa muxaadaradii koobaad oo maalinka isniinta ah bilaabanaysa. muxaadarada ciwaankeeda waxaa la yiraahdaa ahkaamu tahaara. tahaarada iyo ahkaamteeda iyo wixii ku soo arooray ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala hadduu ka raali noqdo culimadu inooga hadli doonaan. sheekh maxamed shibli ayaan ku soo dhaweynayaa, falyatafadal mashkuuran oo muxaadarka muxaadarada ah, wajazaahu allahu khayran. muxaadaradan waxaa la yidhi waa muxaadaro dheer oo aad u faa'iido badan. gabdhaha waxaa laga codsanayaa inay aamusaan. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي وحان كبر يا سبحانه وتعالى كلان كان إنه خير كدقه إنت أنكو قد الشرية كدبنا ربنا حفظيونا بدباديو إن شاء الله تعالى. موضوع الطهارة ذي أحكام تيضا وحي أنك قارا أنك الشيقي دونا هدي الله يراهدو ربنا يقا وافجيو. لكن واباب ديرو أحكام الطهارة وعلماء كتب بدنا يكا قرين واموغارة أما كتب تفقه قيبة كامدة وحي أدلية النصوص هذه اجتهادات لغو سوروريي مردان يقا وقتك قابلي ديسة لنعنا الله يقو وحكلا قارن وقيب مقنتها إنان فايدة لما يسترنين. إن شاء الله وحان اسكده إيانا آدو سو كوبه ونان مسائل كيدا وحبضا aanan hoos u sii gelin. saa darteed wax badan adilo xaggeeda uma leexan doono, ishaare iyo tilmaamo gaagaaban maahan insha allahu tacaala. waxaana u qaybinayaa qaab masaa'il ah. masalada koowaad waxaan kaga hadlayaa macnaha guud ee tahaarada, ahmiyadda islaamka ku leedahay iyo fadliga iyo darajada ay leedahay wax ka mid a. saddexdaa qodob baan masalada koowaad kaga hadlayaa. markii qodobkeeda koobaadi tahaarada waxaa looga jeedaa marka axkaamu tahaara laga hadlayo ama nijaaso la iska nadiifinayo ama xadath la rafcinayo, wax salaad iyo cibaado kaa hortaagnaa oo la samaynayo oo loo tahaaro qaadanayo. taasi insha allahu tacaala intaa wax ka badan markaan qaybaheeda tilmaamo ayay sii caddaan doontaa haddii alla yidhaahdo. arrintaa xaqiimaheeda iyo makaanadeedu arkaanta islaamka rukniga labaad ee salaada ah baan tahaaro la'aanteed asixin. rukniga shanaad ee xajka ahna tawaafka kacbada oo kaleeto rukniga arkaanta ugu waaweyn ka mida xajka iyo cumrada ayaa tahaaradu lagama maarmaan ay tahay qaybo ka mid ah, inkastoo qaybo ka mida la ysku hayaa saan dib ka tilmaami doona insha allahu tacaala. tahaarada waa wax fadli badan oo qofku inuu ku dadaalo. adduunkana nadaafad iyo qurux bay u tahay, aakhiriya cibaado iyo diin marka la yidhaahdana ajir badan baa laga helaa tahaarada in la laasimo.
laba xadiid baan ka tilmaamayaa munaasabadda gaaban darteed. mar nabigeena sala allahu calayh waalihi wasalam waa kii lahaa alطahuuru shatru اliimaani, tahaaradu waa iimaanka nuskiisa weeye. waa iimaanka nuskiisa waxaa looga jeedaa waa uun gobol iyo qayb weyn oo ka mid ah, oo tahaaradu islaamka makaano iyo darajo waxay ka joogtaa lagu qiyaaso, lagu miisaamo ama loo soo qaata tusaale ahaan inay iimaanka badhkii ama qayb weyn oo ka mida ay tahay oy la siman tahay ajirkeedu. arrintaa waxaa sii tilmaamaya nabigeena sala allahu calayh aalihi wasalam tahaarada xadadka qayb ka mida gaar ahaan weysada waxa ugu badan ee soo laalaabtaa inuu tilmaamay dunuubta in lagu dhaafo oo markaa wejiga dhaqda dembigii wejiga lagaa dhaafayo, oo gacmahana kii gacmaha lagaa dhaafayo, lugaha midka lugaha lagaa dhaafayo, madaxa markaad masaxdana kii madaxa lagaa dhaafayo. arrintaasa waxaa awooday buu nabigu sal ly slam xadiid kale ku yidhi walaa yuxaafidu cala alwuduu'i ilaa mu'minun, qof aan mu'min ahayn weysada aada uguma dadaali karo oo dadaal badan oo had ya goor inuu weyse qabo, dahaaradiisi inuu ka warqabo, qof mu'min iyo muslimun baa awoodi karo. xasaba iimaankaagu inta uu dhan yahay ayuu noqon karayaa dadaalkaaga tahaarada iyo weysada aad ku dadaasho. mas'alada labaadii, tahaaradu waa dhowr qaybood ama waxaynu qaybin karnaa laba jeer. marka koowaad tahaarada waxaan leenahay culimmada muslimiintu ka hadlaan qofka muslimkaana looga baahan yahay waa laba qaybood. waxaa la yidhahdaa tahaaratu xadathin iyo tahaaratu khabathin. in nijaaso la iska daahirinayo jirkaaga, dharkaaga ama dhulka goobahaad uga baahnayd gaartay, nijaaso laga daahirinayo waa la yaqaan. qaybta labaadina waa tahaaratu xadatho, najaaso lama dhaqayo laakiin cibaadaadkiibaa ku xiran tahaarada labada qaybood een tilmaami doono ee tahaaratu xadadka la yidhaahdo. labadaa tahaara arrin bay ku kala duwan yihiin asaasi u ah. tahaarada khabadka iyo najaasada marka la tahirayo niyo uma baahna, laakiin tahaarada xadadka marka la samaynayo niyay u baahan tahay. midna waa cibaada asalkeedu u badan tahay, midna nadaafad bay asalkeedu u badan tahay. maalan tahaaratu najaasa waxaa ka mid ah ama khabadka, dhar bay kaadi gaartay, alaab baa nijaaso gaartay oo dhiig iyo wax lamida gaaray, najaasaadka aan tilmaami doono. qofkiibaa istijaysanaya, nijaasaadkan la yska dhaqayaay niyo cibaado ah oo arrintaa inaad la timaadaa uma baahnid. laakiin markii tahaaradan kale ay xadadka oo weyse iyo qabaysi aad la imanayso, iyadu niyo cibaaday u baahan tahay oo haddaadan niyoon tahaaradaadi ma asaxayso. tahaarada xadadku iyana waa laba qaybood, tahaara suqraa iyo tahaara kubraa. mid weyn oo ah waxyaabaha qabayska waajibiyey iyo sida loo qabaysanayo, iyo midda yar oo waxyaabaha weysada iyo qaabkeeda waxa waajibiyey sida loo weysaysanayo. labadaasay u qaybsamaan tahaarada xadadku. saas darteed waxaynu leenahay marka koowaad waa tahaaro nijaaso la iska tahirayo oo niyo u baahnayn, iyo tahaara xadathoo weyse iyo qabays oo niyo u baahan. tahaarada xadadkuna labadaasay u qaybsantaa, midda yaroo weysada ah iyo midda weyn oo qabayska ah. mid walba dib baan uga hadli doonaa waxa keena iyo qaabkeeda. masalada saddexaad, waxa lagu tahaaro qaadanayo weeye. markii la tahaaro qaadanayo, waxa lagu tahaaro qaadanayo wuxuu u kala duwan yahay labadii qaybood ee tahaarada aan soo sheegnay. tahaaratu xadathin iyo tahaaratu khabathin baynu u kala qaadi. haddii nijaaso xadad laga tahaaro qaadanayo oo weyso iyo qabays ay tahay, asalka waxa lagu tahaaro qaataay biyo weeye. biyaha daahirka ah ama kuwa samada ha noqdaan, ilaahay uu yidhi waanzalnaa min aلsamaa'i maa'an tahuura, biyo daahiraan ka soo dejinnaa. ama kuwa ceelo laga qoday dhulka ha noqdaan,
oo nabiga calayhi salaatu wasalaam looga soo dhaamin jiray ceelkii bi'r budaaca la dhihi jiray, ama ha noqdaan kuwa badaha oo nabigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam huwa aطahuuru maa'uhu alxillu maytatuh, biyaha badda waa daahir lagu tahaaro qaadan karo. saddexdaa isku daro waxaynu leenahay waxa lagu tahaaro qaatay asalu xadadka waxaa waa biyaha asal ah. biyuhuna cirkana waa ka iman karaan, dhulkana waa laga qodi karaa, baddana waa laga soo dhaansan karaa. saddexdaasaa biyahana asal u ah. waxaa kaloo lagu tahaaro qaadan karaa booraysiga iyo gabagabaysiga ciidda uu qur-aanku sheegay, waase markii shardigeeda la helee ay bannaanaato. in ciidda lagu tahaaro qaato waxaynu leenahay laba sababood baa banneeya. sababka koowaad ee asalkiihi waa in biyo la waayo. qofkii salaadiina waa joogtaa, qabays ama weysuu u baahan yahay, biyana ma hayo. qofkaasi wuu booraysanoo wuu gabagabaysan. dib baanan booraysiga ka tilmaami doonaa insha allahu tacaala iyo qaabkiisa. qofka labaad ee loo ogol yahay waa qofka biyo haysta laakiin ka baqaya, ama qabow badan baa jira, biyaha wax lagu kululeeyana ma laha. biyaha qabowga hadduu isticmaalana waa ka baqaya. asalna waxaa u ah qisadii camr bn alcaas ee ghaswatu daati salaasil. ghaswi iyo jihaad bay ku jireen, janaabaa ku dhacday, ciidankana isagaa madax u ahaa. biyihii wuu ka baqay inuu qabaysto, inta uu iska booraysto oo gabagabaystay ayuu dadkii tukiyey. goortii madiine lagu soo laabtay ayaa nabiga loo sheegay sala allahu calayh alih wasalam. nabigaa weydiiyey yidhi camr alcaasow saa miyaad samaysay? nabigu wuxuu yidhi yaa rasuulka ilaahay ow haa waa sameeyey. sababta markii la weydiiyeyna wuxuu yidhi waan cabsaday. ilaahayna wuxuu yidhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima. ilaahay naxariistiisu waa waasac. nabigu waa ka aamusay oo waa ku qoslay. qosolkaa iyo aamuskaasoo ogolaansho iyo saxitaan ahaa. sababta labaad ee keeni karta cabsida waxaa weeye cudur iyo xanuun weeye. qofka dhaawac baa ku yaalla, waxaa laga yaabaa camaliyadii isbitaal iyo operation inuu galay, inaanu biyo isticmaali karin oo dhaawaciisa uunan marin karin. qofkaasoo kaleetana ciiddaasuu isticmaalayaayo waa booraysanayaa. iyadana xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa sidoo kale jihaad iyadoo lagu jiro baa madaxa nabar dhaawac kaga dhacay, janaabana way ku dhacday. inuu qabaystay dadkii yidhaahdeen xal kale ma leh. markuu qabaystayna waa geeriyooday, ninkii waa dhintay, allahu naxariiste. nabiga markii loo sheegay wuu ka xumaaday. wuxuu yidhi way dileen, allaha baabi'iyo nag allaha ka dhige. haddaynan garanaynin dadka maxay u weydiin waayeen? qofkaan wax garanaynin dawadiisu waa inuu dad wax yaqaano weydiiyo. waxaa ku fillaa inuu gabagabaysta. saasuu nabigu ku tilmaamay sala allahu calayh alih wasalam. haddaba qofku hadduu biyo waayana ciid buu isticmaali karaa tahaaradii xadadka ee weysadii iyo qabayska. haddii uu biyo haystooo ka baqo ama qabow ama xanuun iyo jiro darteed uga baqiya dhaawac ku yaallana kuwan kale uu isticmaali karaayoo ciiddaasuu isticmaalayaa, muddaday dooniba ha ku qaadate. taasi waa xadadka. ayib, salaaddii waa la gaaray, biyana ma hayo, ciidna ma hayo. waa qofka la yidhahdaa faaqidu tahuurayn. labadii lagu dahaara qaadan jiray baa haddaad weydo oo aadan biyana hayn, ciiddii beddelkeeda ahaydna aadan hayn, salaadda waa tukan, wayna ka asixi. laba arrimood baana asal u ah. marka koowaadii waajibaadka sharciga iyo shuruuddu hadba intii la awoodaa la sameeyaa. waxaan la awoodin waa cafis. salaadda markaad tukanaysa taagnidu waa shardi, laakiin haddaad xanuunsatoo taagnaan weydo fadhiga ku tuko. qiblada in loo jeedsado waa shardi. haddii aad qibladii garanba weydo ama aad u jeedsan weydo diyaarad iyo gaari iyo tareen iyo doon saaran tahay, haddee dhinacii kuu suuragala fa thamma wajhullaahi weeye.
kuwaasay ka mid tahay cawradaada inaad asturto markaad tukanaysa waa shardi dee waxaad xirataba haddaad weydo salaadda waad iska tukan wayna ka asixi ilaahay baana yidhi fattaqu llaha ma statactum intaad awoodaan alla ka baqa arrinta labaad ee la cuskanayo waa dhacdo xilliga nabiga dhacday waxaa meel safar aaday cumar ibn alkhataab iyo camaar ibni yaasir salaaddii baa qabatay si loo gebagabaystana waa garan waayeen camaar wuu iskaga galgashay ciiddii waa tukaday markuu nabiga u yimidna calayhi salaatu wasalaam waxba soo celi salaaddii lama dhihin masalada saddexaad waxaan ku soo gebagabaynaynaa ee tahaaratulxadadka ah xadadkii la yidhi ha laga dahaaro qaato ha laga weysaysto ama ha laga qabaysto hadduuba kala joogsan waaye see la yeeli salaadihii qofkani kaadida ma ceshan karo wakhti kasta way iska iman gabadhii dhiiggii dhabar furanka ahaa ama dhiig furan baa ku dhacayoo maba istaagayo qofkii haddii dhabarka iyo meelo lamida ka gaara ragga ahaa oo aynay biyihii shahwadu istaagayninba dadkaa isku soo daro ama saxaro ha noqoto uusan ceshanayn ama neef uunan ceshanayn ha noqoto ama kaadi ha noqoto ama biyo shahwiya dhiiggii dhiig furankii ha noqdaan dadkaasoo dhan waxaa la isku yidhaahdaa asxaabu alxadati daa'im dadka waxyaabaha weysada jabiya aynan kaba dhammaanba maxay samaynayaan way tahaaro qaadan ciid iyo biyahadba kiif waajibkooda ahaa inta ay salaada ku jiraan wixii ka yimaadana cafis wey oo wixii kaadi ay ka yimaada ama neef ee ka timaada ama dhiigee yimaada intaa salaadaa lagu jiro cafis weeye salaaduna way asixi asalna waxaa uwa gabdhaha uu dhiig furanku ku dhacaa nabigu dardaarankuu siiyey sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi salaad kasta u weysayso markii xilligii caadadu dhammaata qabayso salaad kastana u weysayso midda labaadii qofku intaan buu awoodaaba inuu salaaddii ka tago iyo intaa in la cafiyo is iskaga tukado shariicadu cafiska ay door bida inuu isaga tukado masalada afraad markii nijaasada la iska daahirinayo dhowr wax baa la isticmaalaa oo kala duwan asalku waa biyaha saynu soo sheegnayoo wa anzalnaa min asamaa'i maa'an tahuuran biyahaasa asalkii ah tahaaradooda taasi waa asalka koobaad haddii biyihii ay asal yihiin waxyaabo kaleoo daahiriyaa jira waxyaabo kale oo wax daahiriyaa jira haddii kabaha aad dhulka soo martay nijaasiyo wasakhna aad ku soo istaagtay nijaasaad ku soo istaagtay meel dhooba aad soo martay waxaad soo gashay masaajidkii ama salaaddii kabahaagana inaad ku tukataad rabtaa nabigu sal lla ly slam wuxuu yidhi kabaha dhulka saaha loogu xoqo dhulka ku tirtir kadibna salaadda isaga tuko dhulkaa lagu tirtiray baa daahirinaya waxaa la yidhi gabadha marada jilbaabkeeda dhulka yaalla bay umu salama xadiidkeedii ka sheegteen oo dhulku waana wasakh badan yahay nijaasana waan marnaa baa la yidhi nabigu wuxuu yidhi yutahiruhu maa bacdah dhulka nadiifta ee ka dambeeyaad maraysaan ay maradu taabanayso dhulkaasaa daahirinaya waxaa kaloo sugan marka la istijaysanayo biyo in la isticmaalo oo nijaasadii saxara iyo kaadiya la ysaga daahiriya waa asal waxaa sidoo kale bannaan biyihii oo yaalla in waraaq iyo geed iyo dhagax la isticmaalo shay daahira oo nijaasadii baabi'inaya oo ka qaadaya meesha waxyaabihii muxtaramkaee cuntada iyo xaarka xoolihiyana aan ahayn in la isticmaalana sharcigu waa la ogol yahay adoo biyo haysta adoo musqusha ku jira oo tuubadii biyuhu agtaada taallo baa la ogol yahay waraaq inaad iskaga daahiriso ood ku istijaysatood iska soo baxdo halkaana waxaan biyo ahayn baa lagu daahiriyey waxaa kaloo wax daahiriya wixii nijaasada ahaa hadduu wax kalaba noqdo isbedelo wixii wax kaluu noqdayba bannaanka wixii saxari iyo xaar lagu tuuray muddaa ka soo wareegto ciidduu kala raacay ciid buu iska noqday daahir weeya dhulkii
saxaradii bannaankaa la tubay haddii intay qallasho la gubo dambas ay noqoto dambaskaasi daahir wey waa waxa istixaalada isbeddelka la yidhaahdo waxay yidhahdeen baktigii nijaasada ahaa haddii meelaha badaha intii lagu tuuro isagiiba cusbo uu iska noqdo daahir wey haddaba isbeddelka wixii wax kale uu isu beddelana daahir bay ka dhigtaa intaasoo dhan marka la isku daro wax kasta oo nijaasada raadkeedana zuuliya isaguna daahir ah waa lagu daahirin karaa nijaasaadka waa lagu nadiifin karaa oo waa lagu dhaqi karaa wixiina daahir buu ku noqonayaa intaasi waa inta xadadka iyo khabadka najaasadu ay ku kala duwan yihiin masalada shanaad nijaasaadka in la iska daahiriya loo baahan yahay jirkaaga dharkaaga weelashaada dhulka lagu cibaadaysanayo waxa nijaasaadkaa in laga daahiriya waa waajib laakiin intayna nijaasaad gelin waxaan leenahay asalku wax walba inuu daahir yahay weeye in daliil gaara loo hela ma ahane wax kastoodan daliil u arag ama wax nijaasaynaya aan lahayn najaaso mehe waa daahir mar hadday sidaas tahay nijaasaadku waa wixii daliil cad loo hayo waxaanan leenahay waa laba qaybood najaasaadku waa wax la yidhahda najaasaad cayniya iyo najaasaad xukmiya la kala yidhaahdaa bimacnaa najaaso muuqatoo la arkoo la taaban karo iyo midaan muuqashiya taabasho lahayn hadday marada kaadi yari ku duusho iska qallasho najaasadeedu xukmi baa la yidhaahdaa cayni lama dhaho waayo de waxa la taabtoo la taaban kara ma laha najaasana waa najaaso cayn laho ama waxaa baktiga yaallaa ama saxaro meel taallaa sida loo tahiraa kala duwan najaasadu hadday wax muuqaal iyo la taaban kara leedahay waa in muuqaalkeedaa la suuliyaa oo la baabi'iyaa oo meesha laga tirtiraa laga nadiifiyaa haddii aynan lahayn muuqaalna waa meeshii ay gaartay in biyo lagu shubo ka badan weeye haddaba najaasaadka haddaynu tirinno waxaa kow ka ah kaadida iyo saxarada gaar ahaan kaadida iyo saxarada aadamaha iyo xayawaanaadka aan hilibkooda la cunin nijaas weeye nijaasadooduna laba qaybood weeye kaadida gaar ahaan najaasaadka kala lamidahoo caadiga ah iyo mid waxoogay yar fudud tan yar fudud waa ilmaha yarka ee wiilka ah ee aan 2 sano gaarin ama raashin iyo cunto inuu qaato aan gaarin oo la siin ilmaha wiilkiihi biyaha korka lagaga daadaadinayaa inta kalena waa la dhaqayaa hadday saxaro tahay hadday kaadi tahay labadaba oo bini aadam saxaradii iyo kaadidii iyo xayawaan aan hilibkiisu xalaal ahayn kaadidiisi iyo saxaradiisa ay noqoto kuwaasi waa nijaasaadka koobaad waxaa labaadoo nijaasaadka ka mid a labada dhiigee caadada iyo dhiigga umusha ah labadaba jirka iyo dharka meeshay gaaraan iyo dhulkaba in laga daahiriyo weeye haddii lagu cibaadaysanayo xaydka iyo nifaasku inay nijaaso yihiinna waxaa laga gartay nabigoo amray calayhi salaatu wasalaam markay gabdhuhu weydiiyeen dhiiggu hadduu marada iga gaara maxaan sameeyaa wuxuu yidhi ka xoq marka hore marka dambena biyo ku shuboo ku dabci marka saddexaadna jajabi oo wixii meeshii dhiiggii ka saar su-aal baa dib loogu celiyeyoo waxaa la yidhi haddii aan si kastaba u dhaqo guduudkiina dhammaan waaya maxaan sameeyaa wuxuu yidhi biyaha ku dhaq muuqaalkusa waxba kugu dhimi maayo haddaad kari weyday iska daa culimmada muslimiintana inta aan ogahay dhiigga caadadiiyo umusha inuu nijaaso yahay waa isku raacsan yihiin najaasaadka waxaa ka mid ah biyahan xilliga culayska iyo shahwada yimaada ee almadyu walwadyu la yidhaahdo almadyu miim iyo daal iyo ya marka la aqriyo waa biyaha yimaada maca ashahwati ama ka horeeya ama la xiriira ama ka dambeeya rag iyo dumarbanna waa leeyihiin
biyaha waa dhareer waxoogay jiidma bay yidhaahdaan culimmadu markay tilmaamayaan xilligaa biyaha yimaadaayey asalku waa nijaas wadyigana waa xilliga qofku culays uu qaaday ka yimaadaan ama caqiba albawli kaadida gadaasheeday yimaadaan asalna waxaa waa xadiidkii miqdaad ibn اlaswad ee qisadii caliy ibni abi aalib ee bukhaariya muslim ahayd ee uu nabiga cali baa u diray nabiga miqdaadow wuxuu yidhi anigu bahashaasaa igu badan rasuulkana gabadhiisaan qabaayoo xidid baan nahoo waxyaabaha waa ka xishoonayaa bal ii soo weydii buu yidhi waxaan sameeya waana qabaysan jiray nabig alay salaam wuxuu yidhi iyadoo hortaa ka weysaysto jirkiisi iyo meelihii ay gaartana ha iska dhaqo inay nijaas tahay baa halkaa laga gartay waxyaabaha nijaasta waxaa ka mid a waxyaabaha baktigaa ka mid a waxyaabaha baktiga ah marka laga reebo waxa badda ku jira iyo waxyaabaha yaryarka ahee dhiig dareera aan lahayn sida daqsiga iyo waxa lamidkaa labadaa marka laga reebo wax kasta oo baktiyey oon bini aadam ahayn waa nijaas qofka bini aadamka gaar ahaan muslimku nolol iyo geeritoona ma nijaasoobo laakiin xayawaanaadkii dhiigga dareero lahaa oo lo-dii iyo geeli iyo arigii iyo digaaggii iyo wixii lamidka ahaa haddii ay baktiyaan oon la gowricin nijaaso weeye haraggoodu nijaas weeye hilibkoodu iyo dhiiggooduna nijaas weeye baktigaasi haddaba qoyaanka hiraggiisi iyo hilibkiisu hadduu ku taabto isagana waad iska dhaqi hadduu dhacaankiisu weel iyo dhul iyo dhar gaarana waa la iska dhaqi isagana waa najaaso waa la iska fogayn laakiin waxaynu ka soo reebaynaa laba qaybood oo baktiga ka mida oo aan nijaasoobin baa jira labadaa shay mid waa tima ma nijaasoobaan waayo markii horeba naf ku jirtay oo ka baxday ma laha waxaadna ku garan kartaa adiga oo taagan haddii timahaaga la guro in tintu jiidanta mooyeen goynta ma danqato naf ay la danqata inaan lahaynba waxaa labaadoo lamida lafaha lafuhuna waxaan waa baktiyey kuma nijaasoobaan halkaana waxaa ka garanaysaan lafta baktiga wixii laga samaysto ama qofkii lafihiisoo burburay lagu kabo waa daahiroo nijaaso maaha saxaabaduna waxay isticmaali jireen shanlayaaw laga sameeyey foolmaroodi shanla ka samaysan foolmaroodi maroodida intee wax lagu dhuftay dhintay ama isagoo baktiga loo yimid baa ilkaha kala bixi jireen shanle iyo waxyaaba lagu shanlaystay way ka samaysan jireen jaabkay gashan jireen waa isaga tukan jireen saas darteed lafuhu iyagu ma nijaasoobaan saas darteed marka la kala saaraya waxaynu leenahay baktiga waa nijaas laakiin waxaa nijaas ka ah waxay nafta nolosha naftii ay geli jirtay lafaha iyo timaha nafi ma gashee waa nolosha qaybta sida dhirta oo kaleeto kobaca nafta noloshoodu waa qaybta kobaca ee xayaatu namaa-in ay culimmadu yidhaahdaan waxyaabaha nijaastaa waxaa ka mid a dhareerka iyo dhacaanka afka eyga ka yimaada nabiguna 7 jeer ha la yska dhaqa buu yidhi sala allahu calayh ali wasalam culimmada qaybna waxay uga qiyaasteen oy raaciyeen jirkiisa inta kale iyo doofaarka labadaba iyaguna labadaa laba fiifiican ma ahane isaga fogaada aygu hadduu idin taabtana nabigay ka sugan tahay sala allahu alayh wasalam xadiidka abi hureyre muslim iyo kayrkoodba in 7 jeer oo midi ciid tahay la yska dhaqo de hadda ciiddii xaggay taal 7 jeerna see la yeeli waxay culimmadu yidhahdaan hadda makiinadahan dharka wareejiya iyo qasaaladahan dharka lagu rido marka la dhaqayaay markastooy wareegayaan mar bay ka dhigan tahay biyihiina waa ku jiraan marna biyaha waa ka sii daayaan marna waa ku shubaan qasaaladaa ku filan 7 jeer inay dhaqdo ama ay wareejiso ay biyaha ku wareejiso meeshii ciiddana saabuunta iyo shaambada iyo waxyaabaha haddaad ku shubtaan baa gelaya masalada 6aad tashanaad inta axad najaasaadka iyo sida la ysaga daahirinaya haddaan kaga baxo masalada 6aadi tahaaradii xadadka asqarka ahaa iyo weysada maxaa waajibiya
sideesa loo weysaystaa baan masale ku xigta kaga hadlayaa insha allahu tacaala. maxaa weyse waajibiya? waxyaabo badan baa hadday kugu dhacaan ay weysadu kaa jabtaa. hadday saxaro kaa timaado ama aad kaadido weysadaadii way jabtaa. naskuna waa sheegay, culimmada muslimiintuna waa ku ijmaaceen oo waa isku raaceen. waxaa labaadoo kaa jebiya haddii ay neefi kaa timaado. neefta aan ka hadlaynay midda afka ee daacada ah ma aha, midda sanka ee khuurada ahna ma aha, waa midda gadaal ka timaada qofka wey. neefta gadaal ka timaada labadeeda qayboodba weysada waa jebiyaan. labadaa qaybood waa kuwii abu hureyre xadiidka ku sheegaye uu yidhi fusaa'un aw duraatun, ama mid dhawaq leh ama aamusan. haddii aad hubsata inay kaa timid weysadu waa kaa jabaysaa. waxaa saddexaadoo weysada jebiya haddii aad seexato hurdo aad ishalmaantay. hurdada yaryarka ah salaada dhexdeeda aad ku yar lulooto haddii la dheereeyo, ataxiyaadkiiyo kugu yar qabata, aad dareemaysa dhaqdhaqaaqa iyo shanqarka hareerahaaga ka socdo, aad ogaan karta adiga waxa kaa imanaya, weysada ma jabiso. hurdada aad ishalmaanto oodan wax dhacaya ogeyn, wax kaa yimid oo kaa soo baxayna aadan ogaan karin, weysaday jabisaa. asalna xadiidkii cali iyo mucaawiya uu aho nabigu sala allahu alayh wasalam waa kii yidhi alcaynu wikaau sahi, indhuhu waa dabada xariggeeda, ishaadu waa dabadaada xariggeeda. fa idaa naamat alcaynaani, indhuhu haddii ay seexdaan istatlaqa alwikaau, xariggii waa furmayaa. kadib mar haddaad huruuddo ma ogid wax kaa yimid. walidaalika waxay dhihi jireen dad hurdana lagama soo dhex jeedo, dad soo jeedana lama dhex seexdo. haddaad dad soo wada jeeda dhex seexato waxaa dhici karta in ceebtaadu soo baxdo. haddaad dad hurdo dhex fadhiisatana inaad ceebahooda daalacataa dhici karto. mar haddii la seexdo daba furantay, xariggeedii lama hayo. haddii wax soo qabtay celin lahaa, isku celiskii baa meesha ka baxaya. saa darteed riyaaxdaasi iyo neeftaa soo baxaysaay iyana weysada waa jebisaa. masalada saddexaad ama afraad ee weysada jebisaay waa hilibka geela. hilib geel haddii aad cuntaan weysadu waa idinka jabi. nabigaana sala allahu alayh waali wasalam marar badan la weydiiyey oo wuxuu yidhi hilibka geela ma ka weysaysanaa? wuxuu yidhi haa. hilibka ariga ma ka weysaysanaa? wuxuu yidhi maya. nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu saa tilmaamay wuxuu tilmaamay geel iyo arig iyo xoolaha kale hilibkoodu isku mid maaha, sida xeradooda iyo meesha ay fadhiistaan aanay isugu mid u ahayn. waxaa kaloo weysada jebiya oo nabigeenu tilmaamay sala allahu calayh waalih wasalam qofku farjigiisa iyo dakarkiisa, rag hadduu yahay dumar tahay, farjigeeda inay gacanta ku taabtaan oon wax u dhaxeeyaa jirin, iyana weysada way jebisaa. ama ulakas ha u taabto ama kama ha isu taabto. waana xadiidkii umu xabiibiya abi hurayre iyo busra binti safwaan oo man masa dakarahu falyatawadda idaa afdaa axadukum biyadihi ilaa dakarihi ama farjihi falyatawadda. nabigu waa ka weysaysta uu lahaa weeye sala allahu alayh alih wasalam. arrintaasina waa sida culimmada muslimiinta ay u badan yihiin. qaar baa waxay leeyihiin waa sunno weysadaase waajib ma aha. oo xadiidkii talq ibni caliyin ba ahaa in nabiga la weydiiyey haddaan istaabto weysadu ma iga jabaysaayoo ma ka weysaysanayaa? markaasuu wuxuu yidhi waa un xubin caadi oo jirkaaga ka mid ah. masaladaa marka waxay saamaysay ilmaha yarkaee xafaayadda hooyada ka beddelaysa iyo aabbaha. ilmaha yarka ee laga dhaqayo markii la taabto ma la weysaysan? haddaan qabaysanayay qabays waajiba oon istaabta haddana dimaan weyse ugu baahnahay, masaa'ilkaasoo dhan way ku xihan yihiin cinda culimmada badankood
dib inaad u weysaysato wey. waxyaabaha weysada jabiya waxaa kaloo ka mid a wax kasta oo qabays waajibiya. mar hadduu qabays kugu waajibo weysana waa waajib. haddii aad weysaysatoodan qabaysanna weysadaa keligeed waxba ma tarto, salaadna laguma tukan karo, culimmadii tawaafka shardidayna laguma tawaafi karo. waa iska sunno aad gudatay laakiin waxtar kaloo weyn ma laha. wax kastoo qabays waajibiyoon tilmaami doonnana insha allahu tacaala wuxuu waajibiyaa in la weysaysto sida oo kaleeto. intaana waxaan kaga gudbayaa waxyaabaha weysada keenee weysada waajibiya. masalada 7aad waa weysada see loo weysaysanayaa. weysada inta waajibka ah waa 6 arrimood. arrinta koowaad ay weysadu ka bilaabato horaan usoo tilmaanayoo niyada wey. waa inaad niyootaa inaad weysaysanayso oo tahaaradii cibaadada ee weysada ahayd aad samaynayso. haddii aadan weysaysan niyoonin cibaado aan niyo lahayn innama alacmaalu binniyaati baa kuu taalloo weysadii ka asixi mayso. markaad niyooto kadib weysada waa inay say u kala horrayso aad u kala hormarisaa. haddaad lugaha ka soo bilowdo weysadaadu ma asaxayso adoo wejiga dhaqin. markaad wejiga dhaqdeed soo gaarto yaad ka u tahay, intii kale way ku sugaysaa yaad soo dhaaftay. waa arrinka labaad ee waajibkaa in weysadu say u kala horraysa loo kala hormariyo. kadib markaad weysaysanayso waa inaad wejiga dhaqdaa, wejigana dhammaystirtaa oo dhammaantii wada dhaqdaa weeye. haddii wejiga qaybo cadcad oo ingegan aad ka tagto weysadaadii waxba kama jiraan. wejiga kadib waa inaad labada gacmood dhaqdaa. adugu ama midigta ka bilow ama biixida ka bilow. in midigta la horraysiiya waa sunna, sidii nabigu sal allahu alay wasalam xadiidka abi hureyre ku lahaa haddaad weysaysanaysaan fabda'uu bimayaaminikum, dhinaca midig ka bilaaba. amarkaasi amru nadbin waistixbaabin sunno weeye. culimmaduna itifaaqiya in laysku raacsan yahay arrintaasay qaar ka mida soo guuriyaan. labada gacmood midigta hormari waa sida fiican, laakiin waajib moo haddaad biixda hormariso weysadaadii way asixi. gacmaha markaad dhaqda kadib waxaa ku sugaya madaxii. madaxa inaad masaxdo ama dhammaantii, ama haddii madaxa cimaamad iyo khimaar kugu duuban yahay qaybna aad isaga madaxa gaarsiisa biyaha, qaybta kalena khimaarka iyo xijaabka iyo cimaamadda korkooda aad ka masaxdo. madaxaad wada masaxayso haddii aad markaad masaxaysa timuhu dheer yihiin inta madaxa ku eg korka ka marinteeduna waa waajib. wixii madaxa dhaafsan oo garbihii iyo luqunta gaarana inaad korka biyaha ka wada mariso markuu bannaan yahay iska sunno weeye, waajib ma oo haddaa ka tagto weysadu way asixi. kadibna labada lugood baa dhaqi. waa sidii gacmihii oo bidix iyo midigkaad horraysiisaba weysadu way asixi. laakiin midigta inaad horraysiisaa fiican oo sunankii weysada ka mid ah. intaasi waa inta ay weysadu kaaga asixi haddii aad samayso. haddii aadan samaynin adigoo awoodana aanay weysadii kaa asaxaynin wey. saas darteed wejigii, labada gacmood, madaxii, labada lugood, niyadii ood ku bilowday iyo iyagood kala hormarisay 6 arrimood baa weysadii si ay kaaga asaxdo lagaaga baahan yahay. intaana waa intii qur-aanku sheegayoo faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum wa arjulakum ila alkacbayni. intaa weeye inta lagaa doonayo weysada inaad ula timaaddo. masalada 8aad inta hadday waajibkii tahay in badanoo sunnaa wanaagsan. waxaa wanaagsan weysada markaad bilaabayso inaad bisinka qabato ood bisinka la timaaddo. xadiid dhowr saxaabo ah laga wariyey baa isu geygeyntiisa dhici kartaa inuu heer la cuskan kara iyo xasan soo gaaro, oo ay ka mid ahaayeen saciid ibni zayd iyo abu hurayrata iyo sacd ibni abi waqaasin radia allahu canhum jamiican. laakiin waxaa u xoog badanoo wax lagu waajibin karaa ma aha. saa darteed tasmiyadu sunno weeye, inaad bismi illaahi tiraahda markaad weysada bilaabayso. waana dikriga keliya
ee marka la bilaabaya sugan ilaa dhammaadka laga gaaro inta u dhaxaysa waxa la aqriyo baan iyo waxba kama jiraan way oo warka wajiga dhaqaysa hadii lagu yiraahdo waxa tiraahdaa allahumma bayyid wajhi la wajiga ya cadee waxba kama jira bidca way midigta marka dhaqaysa allahumma a'tini kitabi min yamini ilaa kitaabkayga midigta iga si hadaad tiraadana waxba kama jiraan ilaa aad dhamayso dhikriga dambe laga gaaro wax dhikri oo la kala la aqriyo sunnah ma laha bisinka kadib xubnaha madaxa waxaan ahayn laba goor ama saddex goor inaad dhaqdood ku celcelisay iyadana sunankay ka mid tahay oo waxa sunna ah oo wanaagsan inaad gacmaha laba jeer dhaqday iyo wajiga iyo lugaha ama saddex baa ka sii fiican aad ka dhigto saasayna Muaad iyo Uthman ibn Affan iyo Abdullah ibn Zayd iyo Ali ibn Abi Talib iyo غيرkoodba ay sifadii weysada nabiga ku wariyeen sallallahu alayhi wa alihi wasallam waxa sunanka kamida lugaha iyo gacmaha saan soo tilmaanay inaad midigta hormariso bidixduna ay ka dambayso waxa kale oo sunno wanaagsan gaar ahaan hadii aad hurdo ka soo toostay inta aadan weysada kala gaarin gacmaha 3 jeer inaad dhaqdo sida uu nabiga Abu Hurayra ka wariyay xadiidkii Bukhari iyo Muslim ahaa ee uu yiri qofkeen haduu soo tooso falyaghsil yadayhi 3 qabla an yudkhilahuma fil inaa'i intaan weelka gelin kadib waxa sunnah markaad wajiga dhaqitaankiisa soo gaarto inaad biyaha sanka kor ugu jiido kadibna aad ka soo fiifisaa wanaagsan oo istinshaaq iyo istintharka la yiraahdo nabiguna xadiidkii Laqiit ibn Sabira buu ku tilmaamay in lagu xeel dheeraado waliba sanka biyaha lagu jiidayo iyo luqluqashada labadaba hadii aadan soomanayn fadligoodana waa tilmaamay xadiid kale wuxuu yiri shaydaanku halka sankaaga kore indhahaaga gaarkooda oo sanka gudihiisa uu bariyaa marka biyaha kor intaad ugu jiido ka soo fiifisana shaydaankii baa ka soo boodo soo cararo soo baxsada waxa kale oo sunankeeda kamida gacmahaaga iyo lugahaaga inaad biyihii galgaliso haday sidooda u gaarayaan hadayna gaaraynin galgalintu waa waajib weeye waana xadiidkii Laqiit ibn Sabir ee sunanku wariyeen ee sugnaawi inahaasi markaad weysada dhamayso inaad dhikrigi ilaahay aqrido ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu xadiidkii Umar sidii uu ahaa inaad aqridaa sunnah riwaayat Tirmidhi baa ku daraysa اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين انتاسنا وين قدرتاي روايه الترمذي با سنه كدغيسا ذكرغاسا سو اروري waxa inta ka badan la aqriyana iyadana inta anaga haysal malaha intana waa weysada sunankeedii way waxaan u soo gudbayaa qabayskii iyo sunankiisa qabayska isaga maxaa sunan iyo waajibaada maxaa waajibiya حدثكي هدينو كي أصغر كهاي يرى صور دافني كي أكبر كهاي وينا بينوسو قدبي حدثك أكبر كوا قبيسك وحيابا بضنبا واجبية قفك رقي الضمر كون دوني هالنقضة إلي بيه الشهوة كي مادان هردي السوچيد متك أي نقطابا قبيس بيواجبيسا قفك أصغر هرده هدي بيه كي مادان isagoo soo jeeda haday ka yimaadaan haduu rag yahay iyo haduu dumar yahayba qabaysku waajib uu ku noqonayaa Salama xadiidkeedii baa wuxuu ahaa in nabigeena kaleey salaatu wasalaam ay su'aal weydiisay rasuulka ilaahay waxay tiri ilaahay xaq ma sariigto hal ala almar'ati min ghuslin ilaahi yahtalamat riwaayadka qaarkood idaa ra'at mithla ma yara ar-rajulu ninku wuxuu arko kale haday aragto ama ay riyooto qabays ma laga rabaa wuxuu nabigu nacam idaa ra'at al-maa haday biyo ka yimaadaan ay aragto qabays ba ku waajiba wax laga yaabo inaad dareemaysaan bay haween meesha joogo Aisha ay kamid ahayd baa su'aashii hadalka dhibsaday waxay tireen Salama haweenkii waad ceebaysay ma haween baaba riyoodo biyo ka yimaadaan nabigu wuxuu yiri daaya ka leexda hadaynan haweenku biyo lahayn fabima yushbihuha waladuha ilmaadu sidee muxuu u ekaadaa mararka qaarkood ilmaha biyaha laga abuuray
see ugu ekaadaa ilmaha haddaynan meesha iyadu wax ku lahayn calaa kulli xaal si kastaba ha noqotee hadday cudur iyo caafimaad rag iyo dumar hurdo iyo soo jeed marba biyo hadday yimaadaan qabaysku waa waajib nabiguna wuxuu yidhi almaau min almaa'i biyaha qabaysku biyaha shahwadoo yimid bay ka waajibaan waa masalada koobaad masalada labaaday biyo qabays ka waajibaayey waa kulan xiriir gogoleed oo rag iyo dumar dhex maray weeye ama biyo ha yimaadaan ama yaanay biyo iman nabigeennana ka suganta cala xadiidkii inuu yidhi ida altaqa alkhitaanaani faqad wajaba alguslu labada gudniin hadday istaabtaan qabays baa waajiba marna wuxuu ku yidhi xadiidka abi hurayra idaa jalasa bayna shucabiha alarbaci uma jahida ama uma ijtahada faqad wajaba alguslu haddaba kulanka xiriir gogoleed ee rag iyo dumar dhex mara ama xalaal iyo xaraam midkuu doonaya ha noqdo ama biyo ha yimaadaan ama yaanay iman isaguna sidiisuu qabayska u waajibiyaa oo in la qabaystay ay waajib tahay waxaa saddexeeya gabadhu haddii caado ay ku dhacdo ay ka dhammaato ama intay umushii ay ka dhammaato ay 40kii dhammaysato iyadana qabaysku waa waajib haweenkuna inta ugu badan ee umul ay u fadhiyaan tahaaradeed 40 beri weeye sida xadiidkii ummu salama ay sheegtay xaydkii caadadu hadday ku dhacdana ilaahay baa wuxuu ku yidhiba faidaa tataharna faatuhun hadday tahaaro qaataan oy qabaystaan markaasay axkaamtii ka dambaysay bilaamaysaa halkaa waxaad ka garatay waxa saddexaad iyo afraad ee qabays waajibiya waa labada dhiig dhiigga caadada iyo dhiigga umusha markii ay dhammaadaan ee wakhtigoodii uu dhammaado waxaa shanaad oo qabays waajibiya qofku hadduu soo islaamo qofkii gaalka ah hadduu soo islaamo isna qabays baa laga doonayaa waajiba nabiguna calayhi salaatu wasalaam nin soo islaamay xadiidkii waa kii uu ku lahaa alqi canka shacra alkufri wakhtatin markii uu lahaa waa kii uu faray fa amarahu an yakhtasila inuu soo qabaystuu amray isagoo nabigu amrina la soo qabaystayna saxaaxay ku taalo waa qisadii humaamata bni uthaalin radia allahu canhu wa ardaah qofka hadduu soo islaamo haddaba inuu soo qabaystaa la doonayaa arrinta lixaad ee qabayska waajibisana waa geerida qofku haddii uu geeriyoodo in la dhaqaayo waa waajib laakiin waajibkaa isaga ma saarna dadka nool ee dambuu saaran yahay inay dhaqaan waqtiga dhamaaday miya qaliil baa ku haray insha Allah taala waan leekaysin doonaa insha Allah taala intaasi waa qabaysyada waajibka aan kaga bixi qabaysyo sunnaa jira qabaysyada sunnada kow waxaa ka ah yawmul jumuca maalinta jumcada qofkii jumcadu ay ku waajibtay ama imaanaya goobtaa la isugu yimid saan marka la huuro ee la dhidiida uusan shiir uga iman inuu qabaystay sunno wey xadiidka faqad wajaba alghuslu ahna wujuubkaa sunno adag baa looga jeedaa oo xadiidkii kalaa caddaynaya ahaa man tawada'a yowma aljumucati fabiha wa nicmat waman ightasala faalghuslu afdal xadiidkaasaa caddaynaya wujuub inaynan ahayn waxaa looga qiyaasanayaa goob kasta oo muslimiintu cibaado ay isugu yimaadaan sida salaadii kusuufka qoraxmadoobaadka iyo dayaxmadoobaadka iyo salaadaha acyaadda ee ciidulfitr iyo ciiduladxada iyagana in loo qabaysto sunno wey waxaa sugan inay sunno tahay in loo qabaysto marka la ixraamanayo ee xaj iyo cumro la xiranayo marka maka la gelayo marka carafa la aadayo intaba in la qabaysto qabaysyada sunanka ah bay ka mid tahay qofku markuu qabaysanaya maxaa laga rabaa keliya asaasan inta waajibka lama huraanka ah waa laba arrimood keliya markaa qabays waajiba qabaysanayso labadaa arrimood midna ma dhaafi kartid marka koobaad horta wixii nijaasaa inaad iska daahirisa ee jirkaaga ku yaalla wey jirkaaga hadda ama dhiiggii
ama kaadi ama najaasaad kale jirkaaga ay ku yaallaan horta kuwaas inaad daahirisa weeye ood nadiifiso. arrinka labaadi jirkaaga iyo madaxaaga inaad biyaha wada gaarsiiso weeye. madaxaaga ilaa minjahaaga dhammaan biyaha waa inaad wada gaarsiiso. hal xaalad baa la cafilayaa marka hooyada qabaysanaysa oo ama caado ka qabaysan ama umusha ka qabaysan ama janaabada ka qabaysanaysa hadday timaheedu duuban yihiin ama ay daban yihiin inay furta waajib maaha. korkay biyaha kaga shubi intay gaaraan baana ku filan. nabigaana la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam timaha iyagu markay daban yihiin janaabada iyo xaydka ma u furfuraynaa baa la yidhi. markaasuu yidhi maya, waxaa idinku filan korka biyaha inaad kaga shubtaan. markii cabdullaahi bn camr alcaas la weydiiyey ee uu yidhi timaha ha furfuraanna way kaa caaisha ay lahayd cabdullahi bn camr alcaas la yaab weeye, nabigoo joogaanaan furfuri jirine xaggee wax ka mareen oo naska uga hoos baxay bay tihi caaisha radi allahu tacaala canha wa ardaaha. labadaasi waa labada waajibka. laakiin waxaa sunno ah inaad marka hore weyse ka hormariso. waxaa sunno ah inaad dhinaca midigtaa marka hore dhaqdo. waxaa sunno ah markaad dhammaysato qabayska inaad nadaafadda u dambaysa lugaha raaciso. intaasoo dhanina waxyaabaha sunanka ee la xiriira qabayska ayay ka mid yihiin. gadaal baa la iga riixayaayoo waqti waa kaa dhammaadaa la ileeyahaye waxaan ku soo gabagabayn laba masalo. masalada khufaynka la masaxo iyo masalada tayamumka iyo gabagabaysiga iyo booraysiga labadaasaan ku soo gabagabayn insha allahu tacaala. wixii kale laga yaaba su-aalihiina inay ka soo baxaan. masalada khufaynka marka la masaxayo marka koowaad sharcigeennu khufaynka in la masaxo waa jideeyey. muslimiintii horena way ku ijmaaceen oo waa la isku wada raacay. nabiguna waa sameeyey sala allahu calayhi wasalam. saxaabadii iyo muslimiintii iyo salafkiina waa ka dhaxleen. hal shardi bay leedahay. marka aad masaxayso shardiga haddaan la helin khufaynkaaga iyo sokosyadii ma masixi kartid. shardigaasi waxaa weeye markaad xiranaysay inaad tahaaro qabtood weyse qabtay wey. adoon weyse qabin haddaad xiratay hadhow ma masixi kartid, waa inaad siibtaa. waxaana laga gartay xadiidkii mugiirata bni shucba uu nabiga raacay sala allahu calayhi wasalam. nebigu markuu weysaystay lugaha soo gaaray buu mugiiro foorarsaday si uu nabiga khufaynka uga bixiyo. nabigaa yidhi dachumaa, daa buu yidhi faraha ka qaad, fa innii adkhaltuhumaa daahiratayni, iyagoo daahiraan geliyey iska daa buu yidhi. marka isagoo weyse qabo qofku waa inuu xirtaa. markaa kadib buu salaadaha dambe masax cala alkhufayn samayn karaa. haddaba waa inuu daahir yahay marka uu xiranayo. khufaynkan maxaa la yidhaahdaa sidoodaba? khufaynka iyo jawrabayn baa jira. khufaynka waxaa la yidhaahdaa kuwa ad adag baa la yidhaahdaa. ama harag ha ka samaysnaan ama shamac ha ka samaysnaadaan ama wax kale ha ka samaysnaadaan. waxyaabaha adag een ishuna gudbi karin biyana aanay gudbi karin ayaa waxaa la yidhaahdaa khufayn. waxyaabahan suufka ah ee ishu ama biyuhu gudbayaanna jawrabayn baa la yidhaahdaa. labadabana waa la masixi karaa haddii aad tahaaradii ku xiratay intii la dhaqi lahaana ay qarinayaan. muddada la masaxaya waa imisa? haddii aad musaafir tahayna waa 15 salaadood. haddii aad muqiim qof nagi tahayna waa 5 salaadood. habeen iyo maalin iyo 3 habeen iyo 3 maalmood bay kala yihiin sida nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam. axaadiid badan oo uu ka mid yahay xadiidkii caliy bni abi aalib ee imaamu muslim fii saxiixii ku warinayay. saa darteed 5 salaadood goormay ka bilaaban ama 15 salaadoodba goormay bilaabataa? weysadii aad ku xiratay tiro ma laha. markii ay weysadaasi kaa jabto ee aad masaxa bilowdo yaa 5 salaadood ama 15 salaadood lagu ogol yahay. haddii aad saaka masaxdo oo ilaa casar iyo maqrib aad ku tukato salaadahan ma tirsana. salaada ugu horraysa ee markaad masaxday kadib aad tukato baa kow lagaaga leeyahay
ilaa 5 salaadood qofkii muqiimka aheenagi ama 15 salaadood qofka musaafirka ah taasi waa muddadeeda see loo masaxayaa labada khuf gacanta intaad biyaha ku qoyso umbaad qaybta kore saa u marinaysaa intaasaa kaaga filan cali ibn abi taalibna waa kii lahaa haddii diinta caqli laga dhigi lahaa khufka xagga hoose in la masaxee dhulka iyo kabaha iyo wasakda taabanaya baa mudnaan lahayd laakiin nabigoo kor keliya ka masaxayaan arkay waana xadiis saxiix abu daawud iyo keyrkii ay wariyeen ayib muddadii maxaa iga jebin kara masax cala alkhufayn markii aan sameeyo maxaa iga jebin kara waxaa kaa jebin kara 3 arrimood in qabays kugu waajibo uu kaa jebiyaa oo mar hadduu qabays waajibo khufayn baa la masixi way dhammaatay waa in la bixiyaa waa in la siibaa waa in lasoo tahaara qaataa wey waxaa labaad oo kaa jebiya inay muddadii kaa dhammaato oo muqiim baad ahayd ee 5 salaadood way dhammaatay ama musaafir baad ahayd ee 15 baa kaa dhammaatay iyadana waa inaad bixiso waad soo tahaara qaadata wey waxaa saddexaad iyadoon laba gaarin haddaa adigu iska bixiso tahaaradii 3 salaadood baad maraysay bannaankaad isaga bixiso oo bannaankaad iska dhigtay marka labaad eed xiranayso waa inaad tahaaro qabta laakiin haddaa ay 5 ima dhammaane waan isaga ceshanoo dib baan haddana isaga masaxan lama ogola masax cala alkhufayn hal masalaan ku soo gabagabayn haddii salaadda markaan u socda aan masaxo kadibna aan iska bixiyo lugihii dib miyaan u dhaqayaa maya waad iska tukan waxay la mid tahay sidii adoo madaxa intaad masaxday timihii xiray lagu dhihi maayo mar labaad soo celi timahaad masaxday waad xiirtaye soo celi lagu odhan maayo sidaas darteed baan lagu odhanaynin mar haddaad khufaynkii siibtay lugihii dhaq lagu odhan maayo qowlka asaxu lqowleyn cinda ahli ilcilmi raxmat ullaahi calayhim jamiican masalada ugu dambaysa sheekhuna gadaal baa layga daba taagan yahaye waxaan ku soo ururinayaa masaa'ilka tayamumka iyo gabagabaysiga iyo booraysiga gabagabaysiga iyo booraysigu qur-aankaa sheegayoo fain lam tajiduu maa'an fatayamamuu saciidan tayiban baa la yidhi saciidkaa tayibkiihi mid waa la hubaa ciiddaa boodhka leh inay tayamum geli waa la hubaa waxa kalese lama hubo taasay nusuustu ku caddahay iyada inaad isticmaasho baa la hubaa cibaadadaadii inaad ku gudanayso inta kaleo dhan iska male iyo qiyaas wey marka ciiddaa weeye waxaa la isticmaalayo nabigu alay sl xadiidkii xudayfana waa kii ku lahaa waxyaabihii khasaaista ilaahay siiyey wa jucilat lanaa turbatuhaa tahuuran dhulka ciiddiisana daahir lagu tahaara qaataana looga dhigay goormaa la gebagabaysan karaa waynu soo sheegnayoo marka biyo la waayo ama laga cabsada biyihii isticmaalkeeda xanuun ama qabow looga cabsado labadaa xilli baa la isticmaali karaa oo qofku tayamum iyo gebagabaysi iyo booraysi uu la imanayaa muddo intee leeg baan wadi karaa booraysi iyo gebagabada waxaad wadi kartaa inta cudurdaarkaagii uu ka zuulayo dhan hadday biyo la'aan ahayd intaad biyo ka helayso xadiidka abidar iyo kayrkiina waa kay ahaayeenee tirmidi iyo kayrkii warinayey ee nabigu sala allahu calayh waalihi wasalama uu yidhi alsaciidu ayibu tahuuru lmuslimi walow lam yajid ilmaaa ilaa 10 siniin 10 sano biyo haddaadan helin ciiddaasaad ku gebagabaysan laakiin maalinkaad hesho faidaa wajada almaaa falyattaqi illaaha walyumisa bishratah ilaahay ha ka baqo jirkiisana biyaha ha taabsiiyo saasuu nabigeenu sala allahu alayh alih wasalam leeyahay marka muddada aad wadayso waa inta cudurdaarkii aad leedahay oo dhan ilaahu 5 iyo 10 iyo 20 sanaba ha kugu gaarte goorta cudurdaarkaagii zuulo eed cudurdaarkii ka baxdana waa inaad biyihii dib ugu soo laabataa imise salaadood baan ku tukan karaa gebagabaysigii labada qowl ee culimmada waxaa ugu saxiixsan inuu sidii weysadii yahay haddaan waxyaabihii jebinayeen soo marnay kula soo darsin intaad weyse ku tukan kartay baad ku tukan kartaa
ee salaado farad iyo sunna isugu jira iyaguna see loo gabagabaysanayaa xubnaha gabagabaysigu waa wejiga iyo labada kaf ama labada cumaacumood weeye intan hore la dhaqo kafaynka iyo labada cumaacumood baa la marmarinayaa ciidda gacmaha ilaa xusulka in la gaarsiiyay ma sugno wax tabar badan maaha luga iyo madaxna iyagu maba jiraanba madaxna ciid lama mariyo lugahana ciidda lama gaarsiiyo nabiguna Camaar markuu barayay wuxuu yiri waxaa kugu filayd inaad wajiga iyo labada kafaynka cumaacumaha masaxda way see loo kala hormarinayaa wajiga horreysi gacmahana markaa kadib dambaysi oo gacmahani gacmihii booskooday joogaan haddii aad rabto khilaaf inaad ka baxdo laakiin haddaad rabto daahirka qur-aanka iyo sunnadu kala horreysiintu dhib ma laha haddaad gacmo ku bilowdo iyo haddaad weji ku bilowdo labadaba wuu kaa asaxayaa qaabkeen u masaxayaa ciidda markaad soo qaadato boorkan badan yaanu sanka iyo indhaha iyo afka kaa geline gacmaha inaad iska dhabaan dhowdaa fiican sida nabigu yeelay sala allahu calayh wasalam kadibna boorka badan iska afuuf oo iska yaree kadibna wejigana gacmaha mari cumaacumahana sidii adigoo dhaqanaya gacmaha isugu wareejiyo u mari intaa keliya weeye waxaa lagaa rabo midda fuqahadeenna shaaficiyadu ay dhahaan ilaa xusullada ha la gaarsiiyo kow gacantii labada calaacarood ee lagu soo qaadanayaana istaaban wax sal iyo daliila midna ma laha waxoogay baraktiskeeda iyo hal sida loo sameeyee dhibka badanna waxba ugama baahnid waxba isku mashquulinin waxaan kusoo gabagabeyn qodobka ugu dambeeyahay gabagabaysigii maxaa buriya waxaa buriya cudurdaarkii oo zuulaa buriya biyo la-aan bay ahaydee biyaad heshay way dhammaatay xanuun baad u diidaysay waad caafimaaday hadda weysayso qabow baad ka cabsanaysayee way kululaadeen ama wax kululeeyaad heshay cudurdaarkaagii waa zuulay mar kasta oo cudurdaarkaagii zuulaayey gabagabaysigaagii way u dhammaatay oo biyihii asalkaa inaad dib ugu noqotay noqon intaasaan kusoo koobayaa wasala allahu wasalaamu calaa muxamadin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam jasaaka allah khayran wabaarak allah fiika sheekh maxamuud sheekh maxamed shibli ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ugu daro miisaankiisa xasanaadka ah maalin uu uga baahi badan yahay maanta innagana ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwii wax ku qaata ha inaga dhigo wakhtigu aad buu yaryahay wakhtigaad bixi lahaydeen baa la joogaa haddii hadda maxaan ku dhahdaa layni sii hayana iriddaba dhaafi maysaan dhowr su'aaloodoo muhiim ah oon sheekha ka codsanayna inuu sii gaabiyo shalay wakhtigan wakhti ka horreeya 10 daqiiqa ayaad baxdeen duhurkana yaa allah waad kaga dhammaateen meeshii ilaa 3 su'aalood oon sheekha ka codsanayna inuu soo gaabiyo ayaan weydiinaynaa kadibna insha allahu tacaala waa isfasaxaynaa su-aasha koowaad sheekh gabadhan waxay leedahay waxaan hayaa carruur agoon ah hooyaday oo xanuunsan oo waddankii jirta waxbana aan haysanin baa jirta maxaan ku idhaahdaa xoolaha agoonta een hayo hooyaday wax ma uga dari karaa maadaama oonan anugu waxba haysanin alxamdu lilah jawaabtu waa nacam haawey wixii aan ilmahana ku talax tagahayn hooyadaa waxaa u diraysana aan ka badbadis ahayn masaladana waxaa u asal ah usuusha iyo furuucdu nafaqaadkooda way isku waajibtaa ilmuhuna waalidkiibu hadduusan waxaysanin nafaqa ku leeyahay waalidkuna hadduusan waxaysanin ilmihiisuu nafaqa ku leeyahay ilmahan ayaydood nafaqa waajibay ku leedahay hadday waxhaystaan ama agoon ha ahaadaan ama aabba ha lahaadaan marka xaqeedii waajibka ah qayb ka mida weeye laakiin oga weeyeye unbaa niri iyo hooye walaal iyo adeer iyo abti iyo xaq iyo nafaqa ilmaha kuma laha ee xariggan yaan la yar dheerayn nacam jasaaka allah khayr sheekh waxay leedahay gabadhanu maalinka dhoweedeed sheekh maxaad daraynaysaa waxaad sheegtay in ragga laysu qurxiyo ninkayguna wakhti dambe unbuu yimaadaa oo 8 saac iyo wixii kasii dambeeya ah
سين سوا فتيا أنا هردم بويمنه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد maalinka dhaweytaa waxaan idin idhi markii xagga haweenka iyo ragga iyo arrimaha la taabto waa wax la wada jecel yahayo dadku wax qosliya wax muusooday noqdaan hurdadii waxoogaa cajiska iyo hasaawahana waa istaagaan. asal ahaan waxa laga hadlaya waa xukun guud oo shariicada ah iyo aadaabta wanaagsan weey. ninkuna hadduu xilli dambe habeen yimaado de waqtigii munaasaba la isqurxin karo ama maalinka uu fasaxa yahay ama de xilliga subaxiiba marka la soo toosay guriga la isku arko ama xilliga habeenka uu imanayaba hadday tahay de xilli aad soo jeeday kolaba dharun baad qabtaa haddaad soo jeedo kolaba dharun baad qabtaa dharkaad qabtaa mid quruxsan inuu yahay wax diidaya ma laha laakiin wixii awooddaada ka baxsan qasab maaha awqaadda munaasabaadka iyo fasaxyada ah waqtiga guriga uu ku hakanaya ku daahayo markii isaga laftiisa laga yaabo cuntiya raashin aad u geynayso hadda adigu xilliga furaska ah aad raadsatay dareer baabatiin oo ilma dhalaysaan oo guri baad degantihiin waqtiyo badan inaadan furas iska waayin baan u maleynayaa. nacam jazaakallahu khayr baarakallahu fiik. sheekh gabadhan waxay leedahay su'aalooyin badan bay qaarkood soo qoreen marka waan isku celcelinaynaa. gabdhaha waxay aad u soo qoreen gabdho aan daahir ahayn oo caadada qaba masaajidka ma fadhiisan karaan. alxamdulilah hadda waqtigaa dhammaaday waxyaabihiin aan ka hadla aan rabay bay ka mid ahaayeen. marna tahaaraday ka mid yihiin marka majliska la yimaadaan marna majliska marka la yimaado waa masalo maalin kastaba gabdhaha haysato su-aasheedu soo noqnoqoto weeye. gabdhuhu hadday xaaje iyo baahi u qabaan masaajidka inay galaan masaajidkana wax dhiig iyo najaaso oo ka gaadhaysa aanay jirin way bannaan tahay masaajidka inay galaan iyo inay fadhiyaan labadaba. wallahu aclam. jazaaka allahu khayr. su-aasha kale gabadhan ay soo qortay iyo gabadh kale oo iyaduna ku daba maaragtay waraaq kale soo qortay waan isugu daraynaa. waxay leeyihiin khulaasada midda hore waxay leedahay sheekh nin aan ku qabin telefoonka wuxuu doono miyuu kugula hadli karaa. ta kalena waxay leedahay ninkaan isxodxodanno siduu doono miyuu iila hadli karaa intuu telefoonka ku dhex jiro. alxamdu lilah ragga iyo dumarka ajaanibta kale ah in xilliga ay wada hadlayaan ama telefoon ha noqdo ama toos ha la isu hor yimaado markay hadal iyo haasaawo dhex marayo laba arrimood baa muhiima in la ilaaliyo. kow waxaa laga hadlayaay wax xaaje iyo baahi ay keenaysa loo baahan yahay in laga hadla waa inuu noqdaa. ganacsi baa laga hadli karaa wax la kala iibsanayo xuquuq iyo maal iyo dayn la kala qaadanayaa laga hadli karaa dad dhiban iyo si wax loogu tari lahaa baa laga hadli karaa guur iyo shukaansi iyo masaladan aad sheegaysaan baa laga hadli karaa. laakiin hadalku waa inuusan noqonin qaybaha maalayacniga oo iska haasaawo iyo hadal jiijid iyo sheeko dheerayn waa inaanay noqone wixii qadarka muhiimka iyo baahida in laga hadlo wey. arrinka labaad ee tixgelinta labaad loo yeelaya waxaa weeye marka la hadlayo erayga lagu wada hadlayaay erey edabsan oo asluubaysan waa inuu noqdaa. waa wax kastoo dareenka iyo shahwada kicinaya in laga ilaaliyo oo laba qaybood ay ugu badan yihiin. qayb waa xagga dumarkay ka timaadaayo hadalka in la dabciyo qalbiga dareenka ninka soo jiidana lays yidhaahdo ilaahay yidhi falaa takhdacna bilqowli wey. qaybna rag iyo dumarba way u noqonoo waa in sheekadu aanay gelin baababka qaarkood waa inayna gelin. waa inaan loo sheekaysanin sidii laba isqaba oo sheekadu intay guur iyo arrintii guud dhaafto gogol iyo sheeko hoose waa inayna gelin bahashu aynan aadin weeyo xadkeeda ayna tallaabin. labada arrimood ilaaliya khayr allah idin siiyo. nacam jazaaka allah khayr. dhowrkan su-aalood baan kusoo gabagabeynaynaa. gabadh ka midu waxay leedahay sheekh waxaan hayaa agoon xoolaha agoonta masaajidka wax ma uga sadaqayn karaa anoo iyaga ugu raba in loogu duceeyo.
الحمد لله هدينا نشرين ظروف يا حنون قاره ilmaha agoonta haya oo dawo iyo caafimaad ama ilaahay ku caafiya ama duruuf kaga qaada aan la lahayn xoolahooda sadaqa loogama bixin karo tasarrufka xoolahooda wixii maslaxadooda baad ugu bixin kartaa hadday xanuunsan yihiin ama duruuf haysato oo aad isleedahay dadka intay u duceeyaan ama ilaahay dhibkan iyo duruufta iyo xanuunka kaga qaada waa tii dawada dhakhtarka la geynayay lagu bixinayay kama duwana laakiin si kale isaga bixiyo meel baa lagu bixiyay kale iyagoo adduunka u baahan lama ogola nacam jasaakallahu khayr wa baarakallahu fiika sheekh waxay leedahay gabadhan maartay markaan tukanhayo mararka qaarkood neef baa iga timaada aan meeshii rismiga ahayd ka soo bixin neeftaas miyay jabisaa salaada alxamdulilah jawaabtu waa maya neefta horey baan idiin soo sheegayo waxaan idin neefta afka ka timaada ee daacada maaha tan sanka ka timaada ee khuuradana maaha waa neefta meesha saxarada ka timaada weeye waxa weysada jebiya salaadana jebiya neeftan kaliya hawada kale ee jirka intiisa kale ka imanaysaay weysadiiyo salaada midna ma jebiso khayr allah idin siinaam su-aashan aan ku soo gabagabeynaynaa dad badan baa su-aalo soo qortay qaar xanuunsan qaar carruurtooda u cabsanhaya qaar maxaan ku idhaahdaa dhibaatada reerka ka cabanhaya gabadh ka midu waxay leedahay waxaan hayaa 2 carruur oo agoon ah waxaana jeclahay inay qur-aanka bartaan in la iigu duceeyaan rabaa isla markaa gabadhaas waxay tidhi masaajidka Cape Town 1 raan baan ugu deeqay kanna waxaan rabaa 300 wixii ilaahay siiye kalena waa la arki waxaan rabaa maxaan ku idhaahdaa in la iigu duceeyo marka dadkaas waxaa la rabaa sheekh inaad ducada u jamciso oo ilaahay subxaanahu wa tacaala iyaga iyo carruurtooda iyo ehelkooda cafi iyo caafimaadba inuu siiyo بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد إلهي وحان كبرينا سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وحان كبرينا أسماء ديسا شرف كله صفات كيسا سرية إلهي أود ديسا وحلبو أوده يوغال كيسا وحلبو أقيهي إن ذلك المسلمين تعلمان وحيد دباتوين يستعمى عذر يا حنونة أما علاد يا عبسية أما عدو يا وحكو صلدنا إلهي سبحانه وتعالى دمانتود الله كقاضو إلهي سبحانه وتعالى عذرك عافمد الله وبدله آمين عبسيدنا النبتقريا الله وبدله وحيد دبانا وناق الله وبدله إن والبا وحيد دبا يسا مسلم الله كقاضو وحي هيكسانا يعني وناقنا الله قارسيه سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاك الله خير إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك شيخها وقدره إننا هينغدق قولك كيسا وناقسان قاتا محاضرة سوحية هيتيك